Mayran ma maqashay sheekadii aabe? Maya, waa maxay? Wuxuu ahaa nin aad u fiican. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah wuu dhacay baaskii. Haaway. Xagee buu u dhacay? Wuxuu u dhacay waddada weyn. Waxaana ku dhacay fareenkiisii. Miyuu dhaawacmay? Haa, waa dhaawacmay. Laakiin waxa uu dhaawacmay meesha ugu daran. Hagee? Ilkaha. Hihihi. Ilkihiisii oo dhan. Sidee buu hadlaa hadda? Waa sidan. Wuxuu u hadlaa sidan. Waa maxay macluumaadka aad ka hayso? Waa maxaa maca? Ma fahmin. Waad aragtay. Waa sidaas oo kale. Aabe wuxuu ii sheegay in ninku markuu hadlo, dadka dhammaantiis ay isweydiiyaan waa maxay macluumaadka uu ka haystaa. Hihihi. Waa nin macluumaad leh oo aan la fahmi karin. Laakiin taasi ma ahan waxa ugu badan. Markuu hadlo wuxuu dhahaa meel kasta oo ku jirto. Haddii aad tidhaahdo waad fiican tahay, wuxuu ku jawaabayaa waad fiican tahay. Haddii aad tidhaahdo waa qadar, wuxuu dhahaa waa qadar. Hihihi. Waa nin qosol leh. Sidaa daraadeed, Marwa, haddaad aragto nin baaskiil dhaqdhaqaaqaya oo dhan ilkiisa ka soo boodayo oo hadalkiisu mid aan la fahmi karin yahay, waa inaan u oranaa nabadgelyo macallin macluumaadka.